shilkan gaari oo ka dhacay xaafadda Digaale oo ka tirsan degmada Maxamed Mooge ee caasimadda Hargeysa waxaa ku dhaawacmay 2 qof iyadoo ay halkaas ku burburtay booyadii kaliya ahayd ee xaafadaasi u dhaamin jirtay biyaha. xaafadda Digaale ayaa tan iyo markii la aasaasay waxay ka go'nay degmada Maxamed Mooge iyo qaybaha kale ee caasimadda Hargeysa, taas oo ay sabab u tahay wadooyin la'aan xaafadaasi ka jira. xubno ka mid ah hooyooyinka ku dhaqan xaafadda Digaale ee Maxamed Mooge ee caasimadda Hargeysa ayaa waxay ka warrameen shilka halkaasi ka dhacay iyo dhibaatada ka haysata wadooyin la'aanta. waxaana cid walba oo ay arrintaasi qusayso ay ugu baaqeen in loo sameeyo wadooyin maadaama had iyo jeer wada la'aantu ay xaafadda Digaale iyo bulshada ku dhaqan ku keento khasaare naf iyo maal leh. maalinta nolol baahdo ee waxna laga doonayo un baanu aragnaa haday dawlad tahay iyo haday xildhibaano tahay iyo haday ay dadweyne tahay maalinta anaga dadna laga rabo inta kale waxna doonaya iyo waxna danaynaya midna ma aragno. waxa weeyaan waxaanu nahay dad dhiban waxaan ugu sii darayna wada weeyaan dadkii wax ku madhay iyo wax ku baarlaysa oo ku dhintay wax ku dhintay iyo wax baarlaysa guryaha noo jiifa ayaa dadka iyagu u badan yahay. rabadaan walba iyo bil walba gaari baa ku dhaca cid allayaale cidna ogoon ilaahay haynina ma jirto. hadday xildhibaano tahay hadday dawladda hoose tahay hadday madaxweynaha tahay hadday ku xigeenka tahay waxa weeyaan waxaanu baaq u diraynaa dawladdaanu baaq u diraynaa. waxaanu taagannahay halkan oo maanta ka dhacay shil oo ku dhacday booyad ay labayna ku dhaawacmeen taas ay tahay wada xumo darteed yaanu taagannahay. booyadii u dhaaminaysay xaafadda Digaale hadaan nahay xaafadda danyartay halka degan baabuur horena hore ugu dhacday oo aanay baabuurkana ku dhahayn. marka waxaanu leenahay hadalka badin maayee dawladda iyo cid ay qusayso dawladda hoose maayirka xigeenka madaxweynaha ku dhisa baaq baan u diraynaa madaxweynaha ay weeyaan oo ay daadu maayirku noo qabay asag weyn oo dadka qaylnay hoos u eego weeyaan maanta qura maanaan hadlin ay hoos noo eegaan ay dadkooda maalin walba baabuurta la gudoomaysa wada xumada hayso ay hoos noo eegaan baanu ka codsanaynaa baaqa oo inay soo gaadhaan. wadadiiba ma hayno biyo waa nolosha kooba waa taa booyadeedii nagu horgambiyeen maantadina waxay ku jeel cabaadaysaa kaamka dhexdiisa waxay u jeel cabaadayaana waa wada la'aan ayay u biyalayn qolada ku shaqada leh wadada ee dawladda hoose waxaan leeyahay maxaa halka umadu ku noolayd ay wada u weyday iyadoo ay nolosha ka soo raadsato. gaarigii kan ka horreeyay 12 qof baa saarnaa cid noo timi ma jirto. gaarigana waa gaarigii naftaba nagu qabanayay biyaha nala soo gaarayay gaarigii biyaha nala soo gaaray waa halka yeela labayna baa ku dhaawacmay. waxa weeyaan haddii dawladdeedu wax noo qabanayso wadada degdeg hana loogu sameeyo maatii halka ku biyo beeshay dibteeda ay leedahay. marka waxaan ognahay baabuurta iyo magaranaysa gaadiidka wadada maraya u kala gooshay magaalada gudaheeda iyo xaafadda Digaale u kala gooshay inay dhibaato fara badan ka haysato. gabadha hormada ku dhacayna magaranaysa dad ku dhintaan qaarkood qaarna ay ku dhaawacmeen markana magaranaysa shilka oo la arkay halka ka dhacay dadka magaranaysa dhibaatada ka haysata habeen kasta iyo maalin kasta baabuurtu saas magaranaysa ku dhacayna dhibaatada soo haysata. annagoo ah dhalinyarada xaafadda Digaale maanta tan haysata waxa weeyaan oo wada la'aan doomiyaha iyo madaxweynaha iyo cidii kasta maal haysata ugu dhaanta maanta waxaan dhalinyartii xaafadda booyadaha igi bartaasay ku dhamaadeen tagaasidii noo soo baxaysa halkaas ku wada dhaceen. geesta kale gudoomiyaha xaafadda Digaale ee degmada Maxamed Mooge ee magaalada Hargeysa Xasan Cumar Digaale ayaa halkaasi fariin ka diray. halkan shil gaari oo ayaa ka dhacay hadii la yiraahdo wadada xaafadda Digaale ayaa ka dhacay saaka ciidan kuma dhiman way dad dhaawacan baa jira waa booyadii ugu dhahayd u dhaamin jirtay xaafadda. marka waxa weeye hadaan nahay xaafadda Digaale anigoo gudoomiyaha xaafadda Digaale waxaan baaq dheer iyo baaq gaababa ugu dirayaa dawladda musharaxiinta iyo dawladda dhexe iyo inta khusaysaba halkaas wada inaan ku cadilanahay oo aad iyo aad ugu cadilanahay oo wada la'aanina hayso oo booyaduhuna diideen dadka haraadku haya boodina diideen wada xumo awgeed waxaan baaq dheer u diraynaa nimanka musharaxiinta ee cidka doonaya halka waxa ku nool dad 1500 qoys iyo deegaan ballaaran ku xiran wada ay soo maraan ma hayaan wadooyinkii la mari jiray waa tii la xiray. marka waxaan ka codsanaynaa wadada in laga qayb qaato wadada qayb waanu sameynay qaybtii dawladda gacantii dawladda ka maqan marka qaybta dawladana inay ka qayb qaato kuwa musharaxiinta waxa ay ku darsanayaan ee codka doonaya inay ka qayb qaataan ayaanu ka codsanaynaa. Mawlid Maxamed Siciid warbaahinta qaranka magaalada Hargeysa.